بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيق ومحمود علي عمر ولو يقانا بلا مطبعة وحنا هاي عيرتودي هوري كوحدة مطبعة دو عياري جرتي يقرنكا runtii meeshaan hadda aan joogo waxa weeye magaalada Aarhus oo ka tirsan Denmark waana markii ugu horeysay aan imaado waxa ciyaar ku qabanaya saaxiibkayga weynaa ugu casuumay Cabdullaahi Baynax Yuusuf oo kooxdeena madbacada aan isla ahayn ka horna ciyaarihii gobolada aan isla ciyaaraynay markaan Banaadir u ciyaaray isaga Baydhabo u ciyaaray runtii casuumad weyn aan ka helay dhowr san maadaama ugu casuumay waan iman kari waay laakiin sanadan nasiib waxaan u yeeshay maaragtay nasiibkaygu wuxuu noqday in aan ka soo qayb galo ciyaarahan oo soconayo maaragtay muddo gaaban oo sanad waa ciyaaro sanadle ah mar walba la isugu yimaado magaaladan maadaama odayaasheen all the boys aan nahay runtii magaaladani waxaan ku sheegay maba aqaan waxay magaalo aad iyo aad u degan oo maaragtay maba arkin intaan qurbaha joogay magaalada saan oo kale ma arkin waa halka aan joogno waa magaalada Aarhus waxaan waa xeebtii ama degannahay meeshan meel fiican oo nagu soo dhaweeyay waxaan kula kulmay rag badan oo maaragtay dadkeygii hore ah oo ciyaartooydeena hore isla ahaayeen oo barasamaadkii oo siiba kooxdeydii madbacada waxaan kulmay Macu Xuseen Xasan oo kooxdii madbacada ahay xafadna iskala nimid maaragtay oo degan isaga Sweden saaxiibaday reer Djibouti maaragtay iyo TV-gooda RTD oo maaragtay magaalada UK ka dhisan waxa weeye rag oo maaragtay aad iyo aad maaragtay ciyaaraha u jecel mar walba sanad walba ciyaaraha yimaada kaba soo qayb gala kooxahan Djibouti aan uga soo qayb gala waa rag walaalahayn ah oo maaragtay ma iloobi karno maxay yeelay jecelka ayna tusaan waaba waxaan isku aragnaa ciyaaraha sanadlaha meel badan aan ku kulannay kan saaxiibkay ay Xamud meel badan aan ku kulan Finland iyo Sweden iyo ciyaar badan aan ku kulannay waa rag adiga aan waxaan ku sheegan aqoonin maaragtay waan ku ogaa maaragtay jecelka inoo qaban reer Djibouti oo dhan runtii ciyaarahan markaan u soo laabto all the boys-ka waa ciyaaraha kaliya maanta qurba joog oo dhan isku arkaan hadda Baynax muddo maan arkin Macu maan arkin akhyaar badan oo maaragtay oo kala yimid maaragtay Norway maaragtay Sweden Finland Ingiriiska ayaan ku kulannaa meeshaan waa ciyaar lagu dahaymo waa ciyaar adiga waa 3 cisho laakiin 3 cisho waxay noogu dhigantaa sanadka waa ku mari karnaa maxay leeyahay waa 3 cisho aan aad u wada sheekaysano meelaha la isku marba meel lagu qabtaa ciyaarahan Baynax hadda waa waxaan malaynaa dhowr sano ayuu u dhigayay marka waa sanadan waxaan maadaama saaxiibkay ugu casuum maxuu yiri waa inaad timaadaa waa qasab waxaan irbalan waa inaad imaadaa maadaama shaqadeeda iska badan anaga waan naqaanaa dadka hore u bataan saaxiib ciyaal la yahay shaqada ay iska badan laakiin fasax sidaan oo kale waa u baahanahay maxaa yeelay waaba 3 days waa wax aad nagu yar tahay laakiin waa ku faraxsanahay maxay la ciyaarey odayaashii oo dhan isku arkaynaa TV-deen way noo jooga RTD oo meel walba nala garab taagan maaragtay inuu TV-deen laga duubo programmadeena soo deeyo meelaha waliba ay xataa laga fiirsanayo maaragtay waa arkay Djibouti aad looga xiiseeyo maadaama ay maaragtay aad u xiiseeyaan sportiska runtii waxaan sheegay ma aqaano maxay yeelay ciyaaraha all the boys-ka aniga laftadeeda dadka dheeli jiray ayaan ku jira wali hadda aan maalmaha aan ciyaarin xogaa dhaawac ah laakiin wali Macu iyo ku sii jiraan iyo maaragtay ciyaar badan ayaa ciyaaraan oo maaragtay nooga yimaadaan maaragtay marka kulay galabta ay ciyaar doonaan kulay anaga shalay aan nimaaday galabta ay ciyaar doonaa waan arki doonaa wixii ka soo baxay natiijada laakiin insha Allah ta'ala magaalada sidii tahay maaragtay jawiga waa u bagaybo maxaa yeelay waa jawi aad u degan oo hawada qorrax qabowna ma jiro marka waa dhul xeebad iska magaalo iska degan dhalinyarada intooda badan maaragtay 2 bil ka hor ayaan isku soo aragnay maaragtay ciyaarihii Toronto maaragtay macallin Cabdullaahi Xasan Saalax macallin Dukel ciyaarihii loo dhigay aan soo wada joognay dhamaanteen haddana intaan ku kulana maadaama qurba joog aan nahay kulay maadaama xogaa qurbi loogu batay Denmark iyo Sweden iyo Finland Australia meel walba laga imaanayo mar walba meel ayaan ku kulanaa marka maanta halkan aan ku kulannay insha Allah ta'ala maaragtay ciyaarahan iska fiirsanayna marka hambali ayaan leeyahay TV-ga maaragtay RTD iyo Xamud oo ah nin maaragtay legend marka Xamud adigana aad ugu maqan dhamaan maaragtay reer Djibouti maaragtay waxaan leeyahay aad idin salaamo walaalahay khaliga assalaamu calaykum wa rahmatullahi